biyuhu waa nolosha bini aadamka iyo noolo oo dhanba sida ilaahay quraankiisa ku leeyahay waja'alna min al-maa'i kulla shay'in hayya. dhulkan ilaahay nagu beeray wuxuu kaga duwan yahay beerayaasha kale waa biyaha, taasoo markaas gaar ka dhigtay inay noloshu keligii ay markaa ay ka suurta gasho. dhulkan 70% waa biyo, laakiin nasiib daro 97% biyahaasi ma aha kuwa isticmaalka bini aadamka ku habboon, oo waa biyo dhanaan oo ku kaydsan markaa badaha iyo badweynada dunida. 3% soo hadhay ayaa waxaa la yidhahdaa waa fresh water ama biyaha ku habboon isticmaalka bini aadamka. 2% wax ka badan xaddigaasi waa biyo u jira markaa as a solid ama baraf xidhifyada adduunka ku kaydsan oo iyagana markaa bini aadamku una ka faa'iidaysan. sidaa darteed less than 1% ayaa ah biyaha markaa adduunka dhan u isticmaalo waraabkiisa iyo ka faa'iidaysiga xagga beeraha iyo xoolaha iyo isticmaalka bini aadamka. taasi waxay keentay in ahmiyad gaara markaa la siiyo biyaha qaabkii markaa looga faa'iidaysan lahaa, culum gaarana loo dejiyo, keentayna markaa in xus loo sameeyo markaasi si dadka loogu wacyigeliyo arrimahaas ihtimaamkooga. ka fakartay ahaan markaa doorkeyga anagoo ahmiyadaasi tixgelinayna ayaa waxaan markaa fariintan aan u faraynaa dhammaan hay-aadka ku shaqo leh arrimaha wax soo saarka biyaha iyo cilmi baadhista biyaha la xidhiidha in arrintaasi lasii laban laabo, because taxadiyaadka ama dhibaatooyinka soo wajahaya biyaha percentage-kaan soo sheegnay oo aad dhaawaca u gaarayo, hadday tahay koritaanka populationka adduunka, koritaanka warshadaha, koritaanka beeraha iyo isticmaalka biyaha oo kor usii kacaya waxay dhaawac u gaarsiisay jiritaanka biyahaasi. taas oo lagu daro qashinka warshadaha ka soo baxaya, bini aadamka laftiisu qashinka badan oo soo saarayo inay dhaawac weyn ay gaarsiiso markaa badqabkii biyahaasi. saa darteed hay-aadka ku lug leh arrintaasi inay sii laban laabaan qaabkii markaa dalka looga hirgelin lahaa source markaa badqaba oo biyahaasi fresh waterka looga faa'iideeyo dalka. bulshadana gaar ahaan waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ilaashaan sourceka naadirka ah sida ceelasha oo biyaha macaan markaa aan ka helno oo laga fogeeyo markaa wasaqaha iyo qashinka la daadinayo si markaas loo hirgeliyo loona taabageliyo caafimaad iyo badqab markaa bini aadamka noloshiisa ku habboon ayaan markaa ku dhiirigelinaynaa. aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.